shirkadda Tech Power oo ka mid ah shirkadaha leedhka siiya magaalada caasimadda ah ee Hargeysa isla markaasina hoos timaada shirkadda Telesom oo ka mid ahayd shirkadihii maanta ka qayb galay kulankii guddi hoosaadka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee aqalka golaha wakiilada ee su'aalaha lagu weydiinayay mas'uuliyiinta shirkadaha leedhka siiya caasimadda Hargeysa si guddidu ay wax uga weydiiso cabasho maalmihii u dambeeyay ka soo yeedhaysay shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa taasi oo ku saabsanayd qiimaha leedhka مسؤول هذا الشركة Tech Power ayaa ka warbixiyay leedhka shirkadoodu ay bixiso oo sheegay inay yihiin shirkad shacabka magaalada Hargeysa qiimo jaban ku gaarsiisa adeega leedhka isla markaasina waxa uu sheegay in dhibaato ay ka haysato shirkadda Tech Power sidii ay u fidin lahayd xadhkaha leedhka ee magaalada Hargeysa taas oo sheegay in shirkadda Tech Power ay ka dhaqaaqi leedahay wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Somaliland oo hortaagan in shirkadu ay fidiso xadhkaha leedhka si shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ay u gaarsiiyaan leedh qiimihiisu yahay mid jaban meel taagnaan ma waxyaalaha kale marka annaka noo raaco waxa kamid ah sida korontada iyadu ay u bilaabantay iyo in hawlaha jira dartood losiska nagu dhaco oo iyaguna in badan oo markaa dabadeetana iyaguna keena in qiimuhu وسرّيه أو سرّوده أو سرّوكه. ودمنا الدنيا كلها هذه المسؤوليات إن أنت بدن ده واحد قبل هذا إثيوبيا ده النودو إثيوبيا ده النودو واحد لقى يابا 1% واحد هاي كيسة كدليا واحد كمان نقطة قرة الآن يبيو إن أنت كدليا واحد لا لا كلام أو مركا إنكم أنت مدنا كما دليا. هلا كله شراء ما هذا كشيء كذا وجسنا إن عاوموين للنسيء وحاوموين هو أنك شركة هان نلسيء أديها تبدي يأديها تو هذا يويل بان خاصة هربيسة مشوك لكن أنا بوه هذا أيام مر بيفيد نوع عاوسي سولار مركز دلتنا بوه هذا أنا قيمة هو المجنين أو قيمة هو سيء أيام كذا مركز أي صورة جل هاي إن الله أيام كذا لكن أنا كهربيسة وإحنا لو عارفين ما يجرين يوم يراها كلا عن شنّا يرا فرضاً عن شنّا إلا تطبيق مجاله أيام تبقى سنّا عن تبقى شنّا أنت عملنا نلاقي ما عارفين مركبوه هذا لقى هو هذا قيمة هوسبان جريني ومركب هالكي حتى شركة نقول بلدي هي أدمل كوسيسة أيام جيني تاسينوا تاسو مركب renewable energy كما فائدة سنّو taasina waxay keentay marka dabadna qiimuhu waxa kale oo jira kharashaadka kale ee marka aad xabada dieselki waxa laga yaabaa 3 unit inuu halka la tira dieselki inuu 3 unit soo saaro 3 unit marka dabadeetna halka isaga ayaaba marka ugu horeysaba ah 0.5 halka lagu jooga marka lagu daro marka maintenance-ki marka lagu daro maxaa dhacday qarashkii shaqaalaha marka lagu daro depreciation-ki qalabka marka lagu daro cashuurihii waxa soo dhan marka lagu daro waxa laga yaabaa in uu halka unit nagu soo fadhiisto 0.45 meelaha in nagu soo fadhiisto marka dabeetana wax aad faa'iido saari karto ama 0.5 mararka qaar koodna inuu nagu yimaado marka wax faa'iido laga heli karo idinba waa qiyaasi kartaa faa'iido badan oo anagu saarno maxaa ahayd ma jirto marka meelahaas ayaan kaga bixi lahaa maxaa ahayd solar ah oo aan ugu talagalnay in aanu diesel kan aanu isticmaalno hoos ugu dhigno qiimaha laftiisana aan hoos ugu dhigno stationkii markii aanu dhamaynay aan wasaaradda nidhi aanu haddaba ku soo xidhno stationadeedii hore waxa weeye waa nala warwareejiyay ilaa imka 2 sanadood baa ayaan wareeg ku jirnaa oo marka aan nala ogolaan in aan ku soo xidhno halkii aanu ama stationadeedii hore inaan ku soo xidhno nimka muddo 5 sanadoodana baana waxa iska jirtay waxa saarnaa sanad walba waxa nala saaraa mamnuucid waa la joojiyay fidintii sanad walba mid cusub la soo saaro marka waxaad moodaa wasaaradda lafteedu in ay
shirkadii halkay horumar ka samayn lahaayeen ama ay samayn lahaayeen waxay qiimaha ku dhimaan ha ahaato ama dee lossiskan faraha badan iyaga laftooda ka qayb qaadanaya in qiimihii sarreeyo waxay ku dhimi lahaayeen inay wasaaraddu ka qayb qaadanayso in aanay dadkii shaqaysanoo hawsha aanay qabanin xataa maxaa ahaydee dayactirkii wixii hore ma samayn karno oo waxa weeye marka la yiraahdo wax dayactiraba waxa dhacday in booliiska lagu balamiyo doodna la xidho oo mushkiladaas ay iska jirto shirkadaha dhanba laakiin annaga waxa noo gaara stationkii aan dhisnay oo aan magaalada keeni kari lahayn ayaa noo gaara maxamed cumar daariq RTN Hargeysa